waxa uu ka qoomeynayaa badbaadada uu badbaadiyay xaaskiisa. Noloshu waa adag tahay, mararka qaar waa cadaalad darro, dadkana muujado kala duwan ayay u soo gashaa. Ninkan wuxuu dadaal dheer ugu jiray oo ku bixinayay sida uu reerkiisa ku hormarin lahaa. Waxa uu lahaa xaas iyo wiil yar oo 3 bilood jooga. Aad ayuu u jeclaa xaaskiisa iyo cunugiisa, balse maalin maalmaha ka mid ah ayaa sida caadada ahayd wuxuu u shaqo tagay magaalada si uu nolol maalmeedkooda u soo dhiciyo. Waxa ay deganaayeen guri yar, balse gurigii ayaa waxa ka kacay dab oo ay ku jiraan xaaskiisa iyo wiilkii yaraa. Dadka deegaanka ayaa ku wargeliyay in gurigiisa uu gubanayo ee cunugii iyo xaaskiisa ay ku jiraan. Uu soo cararay wuxuuna yimid gurigii oo gubanaya, si nafurnimo leh ayuu iskugu tuuray gurigii oo gubanaya, wuxuuna soo badbaadiyay xaaskiisii. balse nasiib darro waxaa guriga ku haray wiilkii yaraa oo 3 bilood joogay. Mar kale ayuu nafsadiisa khatar geliyay si uu u soo badbaadiyo cunuga yar oo balse waa uu dhintay oo wuxuu u tagay isagoo gubanaya oo naftii waayay. asagana waxaa soo gaaray dhibaatada jirkiisa ka muuqata. Dadka deegaanka ayaa aad ula yaabay sida ninkan uu xaaskiisa u soo badbaadiyay, naftiisana uu u hilmaamay guriga oo gubanayo oo xitaa lahayn meel laga galana oo isku dhex tuuray xaaskiisana uu soo badbaadiyay. Meesha murugada leh ee ninkan uu ka qoomeynaya ayaa ah xaaskii uu soo badbaadiyay oo naftiisa u huray oo ku hormariyay cunugii yaraa oo dhalay inay ka dhaqaaqday markay aragtay sida muuqaalkiisu uu isku bedelay, dhaawacii soo gaaray jirkiisa oo muuqaalkiisa bedelay. wuxuu yiri mararka qaar waan iska ooynayaa, waxaana la ooynayaa sida cunugayga oo hortayga ugu gubtay. waxaan arkay isagoo gubanaya oo dambas beelay. Kuma santiin daawashadina page-ka follow garaya, laagtana ha ilowina saaxiibayaal. Nabadgelyo.